tan waa videoga lixaad oo aan uga hadlayno basasha iyo sidii loo hagaajin lahaa wax soo saarkeeda. dabcan Soomaaliya oo kale haddii aad joogtid oo aad rabtid inaad basal soo saartid kama maarantid inaad waraabisid beertaas oo roob kaliya la iskuma halayn karo. marka video waxaan uga hadlaynaa tillaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo maamulo basasha iyo biyaheeda waraabka ah oo aad u muhiim ah haddii la rabo wax soo saar fiican iyo tan fiican in laga soo saaro beerihii basasha. fadlan ka faa'iideyso. السلام عليكم كل سنة وهذا فيديو كلا يدين دياري سفام صوماليا ومطلق الله إنك فايديستان ولا لها صوماليات ميعيقو علي باشي. فضلا هدي أكو عصوبتا كنالك سبسكرايب ده بالكنا تابو سيسا كودا في المركز فيديو صوصا مينو. فضلا وجود بيقولوا ذاك ولا لها كلا صوماليات سيوغا فايديستان ومحسنتين. سيدنا شاكنا فيديو وحنا وحلينا ماموليدا بيها ورابكا باساشا oo kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadii si fiican loo maamulo wax soo saar fiican la heli karo. baaritaamo badan ayaa markaas waxay muujinayaan in biyaha sida loo maamulayo ay aad u kala duwan tahay, waxyaabo fara badan ay ku xiran tahay. waxyaabahaas ay ku xiran tahay waxa kamid ah nooca aad dooratid oo variety-ga aad dooratid basasha maxaa yeelay way kala duwan yihiin. waxa kale oo kamid ah waxa loo yaqaan planting density ama sida aad isugu dhaweyso oo aad geedaha aad maaragtay isugu ciriireyso. maxaa yeelay hadii biyuhu ay kugu yar yihiin biyo badan aadan haysan geeduhu markaas waxa u sahlanaanaysa in maaragtay ay biyihii meesha ku jiray ay ka faa'iideystaan. laakiin geeduhu hadii aad isugu badan yihiin biyuhuna ay yar yihiin markaas biyihii lagu tartamaya dhibaato ayaa imaanaysa. marka taasna way ku xiran tahay. waxay kaloo ku xiran tahay inta aad rajaynaysid inaad ka heshid oo maaragtay wax soo saar ah. inta tan oo aad rabtid inaad beerta ka soo saartid ayay ku xiran tahay sida aad biyaha u maamulaysid. sidoo kale waxay ku xiran tahay ciidda meesha aad joogtid ah iyo cimilada ka jirta meesha aad joogtid ayadana waa ku xiran tahay. sidoo kale waxay ku xiran tahay waraabka aad isticmaashid, qaabka aad isticmaashid, nooca uu yahay waraabka aad isticmaalaysid taasna way ku xiran tahay. marka sidaas darteed waxaa muhiim ah qofku markii uu rabo basasha kale inuu waraabiyo in uu xaaladda jirta qaabka roobka da'ah loo qiyaaso oo loo maamulo insha Allah bar ayaan ka hadli doonaa. laakiin xaaladda markaas jirta oo sanadkaas ka jirta waa inuu sidaas darteed uu ku maamulaa oo ilaa sanad kasta isku roob ma roobku kala duwan yahay, roobka da'a waa kala duwan yihiin, kulaylka jira wuu kala duwan yahay. sidaas darteed ayuu ku maamulayaa qaabka jira si go'an isku si looguma shubayo markasta. sida fahmi kartid biyaha uu u baahan yahay dalaggu waa kala duwan yahay. basasha kale way kala duwan tahay oo marka la bilaabo iyo marka la dhameynayo way kala duwan tahay. midaasna way mid aan rabnaa inaan uga hadalno oo qaababka kala duwan xilliyada kala duwan biyaha saameynta ay ku yeeshaan iyo sida loo maamulo ayaan rabnaa inaan uga hadalno videoga oo xabad xabad usoo qaadano meelaha kala duwan. marka sidaas darteed baahida ay u qabto basashu xilliyadaas kala duwan biyaha way kala duwan yihiin. sida markay soo baxayso kale, marka la talaalayo, markii oo caleentu ay korayso, markii oo mirta iyo jirida hoose ee basashu ay korayso oo weynaanayso, iyo marka ugu dambaysa oo la soo guranayo. intaba qaabkii biyaha loo maamulayo way kala duwan yihiin. dabcan midaan hore ayaan uga soo hadalnay oo ah emergency-ga wax la yiraahdo markii ay soo baxayso mirtii sida biyaha loo maamulo. waxyaabo badan ayaan ka hadalnay waxaa kamid ah sidoo kale camal in la saaro maaragtay ama caws ama maro in wax la saaro si u dedejiso inay mirtii ay soo baxaan. oo mirtoo kale waxay u baahan tahay biyo fiican in lagu shubo intii aan meesha la gelin, taasna ka bacdina biyahaas si qiyaasan lagu hayo si mirtu u soo baxdo. marka taas hore ayaan uga soo hadalnay. haddii hadda aan ka hadalno marka xididka, ileen xididkii saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa qaabkii aad wax u abuurinaysid. maxaa yeelay haddii aad fahantid geedka aad abuuraysid noocu raba ahaada xididkiisa sida uu u shaqeeyo waxa kuu sahlanaanaysa marka inaad maamushid nafaqadiisa iyo biyihiisa. marka adi isku si miyaa u maamuli lahayd dalag 70 sentimitir oo xididkiisu dhirar ahaan uu hoos aadayo iyo dalag 20 sentimitir oo xididkiisu uusan dhaafayn? isku si uma maamulaysid. maxaa yeelay biyo hoos markay aadaan xididka dheer wuu ka daba tegayaa, xididka aadka u gaabanna biyahaas inuu ka daba tago iyo nafaqadaas way adag tahay. marka saddex nooc ayaa waxaa loo kala qaybiyaa marka dalagyada kala duwan xididada ay leeyihiin. mid waxaa la yiraahdaa shallow oo waa dhow yahay 30 ilaa 40 sentimitir ayuu u dhaxeeyaa.
midna waxaa la yirahdaa moderate oo 45 ilaa 60 centimeter ayuu u dhexeeyaa, midna waa deep oo waa fog yahay oo 60 centimeter iyo wixii ka badan ayuu noqdaa. marka saddexdaas nooc ayaa loo kala qaybiyaa. marka haddii aad aragtid oo lagu leeyahay shallow root uu leeyahay geedkaas, sidaas ayaa laga wadaa. marka basashoo kale ayadka waxaa loo qadariyaa inay tahay dalagyada oo shallow rootka la yiraahdo, oo baaritaamada ayaa waxay muujinayaan in xididkiisa inta badan uu joogo 20 centimeter oo u koraysa, oo xidido aad u yar oo aan badnayn kaliya ay 30 centimeter xataa dhaafaan, oo intooda badan 20 centimeter u koraysa ayay joogaan. baaritaan kale ayaa wuxuu muujinayay in 90% ka badan xididka basasha uu 40 centimeter oo u koraysa ciidda uu joogo, meesha 2 ilaa 3% uu gaarayay 60 centimeter. taas marka waxay ku tusinaysaa sida aan hore u niriba wixii 60 centimeter ka hooseeya biyaha ay kala soo bixi karaan inuu aad u yar yahay. tusaale ahaan marka yaanyadoo kale iyo galleydo kale haddaan soo qaadano, galleyda noocyada kala duwan ay ku xiran tahay, oo ama sweet inay tahay ama mid kale inay tahay ay ku xiran tahay, 90 ilaa 150 centimeter ayuu gaari karaa xididkooda hoose, meesha yaanyada ay tahay 60 centimeter. marka waxaa jira wax la yiraahdo irrigation scheduling, taas oo ah in ay tahay waa in markasta biyo ku filan oo si buuxdana u qooya aagga xididka geedka, iyadoo la yaraynayo biyaha xad dhaafka ah, kadibna loo ogolaanayo ciiddii inay qalasho qiyaas habaysan. marka taas ma ogaa kartid mana samayn kartid haddii aadan ogeyn xididka inta uu jeedo oo joogo iyo dhulka meesha uu ka gaarayo. haddii aadan ogeyn ma samayn kartid marka irrigation scheduling ma samayn kartid. marka taasna waa muhiim qofku inuu maaragtay uu sameeyo irrigation scheduling oo beerta u sameeyo isagoo xididkiisii inta uu gaaro ka warqaba. sidoo kale ciidda inuu qofkii taabto oo fiiriyo, faraha ku fiiriyo, oo aan la ogolayn in ciiddiina ay qalasho qoyaanna uu dhex fadhiyo oo gacmaha uu ku barto. marka haddii la yareeyo in biyihii ay ka dhammaadaan ciidda oo wax la yiraahdo available water, markasta laga heli karo geedkii uu heli karo, ciidda uu ka heli karo, biyihiina aysan ka badnayn, qofkii markaas uu gaari karaa xataa 40 tan iyo ka badan. haddii uu geedaha sidii loogu talagalay isugu xijiyo wuu gaari karaa 40 tan wuu soo saari karaa. laakiin beeraleyda inta badan waxyaabaha oo hoos u dhiga waxaa ka mid ah in aysan irrigation schedulingkii inaysan si fiican u maamulin, taas darteedna ay maaragtay wax soo saarkii uu hoos u dhacayo. haddii aan marka u nimaano transplantska ama xilliga basasha la talaalayo iyo biyaha saameynta ay ku yeelanayso iyo sida biyaha loo maamulo, waxaa la yiraahdaa inay tahay marka xilliga ugu muhiimsan in biyaha si fiican loo maamulo marka ay tahay emergency-ga oo hore uga soo hadalnay oo mirti ay soo baxayso. maxaa yeelay mirtii haddii aysan biyo ku filan aysan helin si fiican loo maamulin, meesha ayay ku qurmaysaa si fiican uma soo baxayso. transplantikana geedkii meeshii uu ku jiray ayaa laga soo bixiyey ama caagad ku kori ama ciid inta ku koris asagoon ciid wadan soo bixi sidaa rabtayaal. laakiin transplantinka aad ayay muhiim u tahay iyadana, maadaama geedkii meeshii uu ku jiray uu ku korayay laga soo bixiyey, in xilligaas uu la qabsanayo ciiddii in biyaha si fiican loo maamulo aad ayay muhiim u. waxaa kaloo muhiim ah oo very sensitive ay tahay in biyahana si fiican loo maamulo waa marka la yiraahdo bulb formation, oo marka mirtii ay korayso. marka saddexdaas xilli ayaa ugu daran in biyaha si fiican loo maamulo. marka waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid ah kaba soo qaadba haddii aad rabtid inaad maaragtay transplant samaysid, in aad beerta maalin ka hor inta aad transplanting samayn aad si fiican u qoyso oo biyo fiican aad ku shubto oo ciiddii oo qoyan ka bacdi aad transplanting ku samayso. markii aad transplanting samaysana ka bacdi aad waraabiso, waa muhiim oo waraabis aad ku xijiso isla markaas aad talaasho inaad hore ka waraabiso. marka dabcan sidaan hore u sheegnana lama rabo in laga badiyo, lama rabana in lagu yareeyo. laakiin dabcan sida aad fahmi kartid biyaha uu u baahan yahay markaan tira ahaan way ka yar yihiin markii geedkii uu hadhow uu korayo oo caleemo badan u yeesho, way ka yar yihiin. meesha kale oo ku xigta oo la rabo in ayadana la maamulo waa waxa loo yaqaano vegetative growth, ama markii uu soo dhaafay transplantikii oo geedkii uu korayo caleentii ay korayso oo weli aysan bilaaban in xididkii ama jiridii hoose ee basasha ay koritaanka bilowdo. xilligan marka waa xilliga oo caleentu ay korayso oo ay badanayso oo ay isqabsanayaan basashii. xilligan wey marka xilliga oo halkii caleenah oo basasha ka soo baxdaaba ay noqonayso waxa la yiraahdo bulb scale ama daboolka basasha ay noqonayso.
xilligan ayaa waxaa la yidhahdaa marka inay tahay xilliga aysan geeduhu aysan sensitive ku ahayn biyihi hadday ku yaraadaan oo dhibaato weyn inaysan soo gaarin haddii biyihi ay ku yaraadaan. laakiin markii la gaaro liifka 5aad ama liifka 7aad markii la gaaro waxaa dhacaysa in haddii ay biyuhu ku yaraadaan iyada laftirkeedu ay saameyn ku yeelanayso basashaadii intay la ekaanayso iyo qaabka ay noqonayso. maxaa yeelay baaritaamo ayaa sidoo kale waxay muujinayaan inaad biyaha ku yarayso xilligan oo vegetative developmentiga la yiraahdo in aysan saameynayn wax soo saarkii basashaadii tiradeeda si u badan tahay sida markii la gaarayo xilligii ay koritaanku ay bilowdaan oo mirtii basashu xilliga ay koritaanka bilowdo saameynta ay ku yeelanayso markaas inaad biyaha ku yarayso iyo markaan caleentu ay korayso isku mid ma aha oo waxaa daran markaas dambe marka waxaa dhacaysa in wax soo saarkii ay hoos u dhigayso. laakiin sidaas ay tahay beeraley badan ayaa waxay leeyihiin haddii xilligan caleenta kaliya ay korayso biyahana lagu yareeyo iyaduna in ay maaragtay saameyn ku yeelanayso. maxaa yeelay inta caleen oo ay soo saarto basashu intaas ayay marka waxay noqonaysaa waxa la yiraahdo scales ayay yeelanaysaa. scaleska marka waxaa laga wadaa laalaabka basasha. marka ma ogtahay inta jeer oo laalaab ay basashaas ay leedahay waxay ku xiran tahay inta caleen ay basashu ay leedahay. marka tusaale ahaan 13 caleena haddii basashaasi leedahay 13 scales ay yeelanaysaa oo basashii. marka basasha inteeda badan bulbska waxa la yiraahdaa ama xididkii oo basasha waxay bilaabaysaa inay koritaankeedu bilowdo 6 ilaa 8 leaves markii ay joogto ayay koritaanka hoose u bilaabanaya. marka haddii aadan marka waardiyeyn caleentaas waxaa dhacaysa dabcan wax soo saarkaagii inay saameyn ay ku yeelanayso. maxaa yeelay scaleska ay helaysid ayaa yaraanaysa maadaama ay caleentii badan aysan fuulin basashii. marka saas darteed ayay muhiim u tahay in caleenta la waardiyo oo la koriyo oo nafaqo ku fiican la siiyo. qaybtan marka waxaa la yiraahdaa bulb initiation ama waa marka oo bilowga koridda jiridda basashu ay bilaabato. sida aan hadda hore usoo taabtana waa qaybta oo wax soo saarka saameynta weyn ku yeelan karta haddii biyo ku habboon aan la siin. maxaa yeelay markan waa marka oo sida fiican uu u korayo oo geedka ilaa waanaga hore usoo niri basasha daylight hourska markii ay gaarto xilligii loogu talagalay iyo kulaylkii loogu talagalay markaas weeye marka ay bilowdaa in qaybta hoose ay korisaa. oo waanaga niri haddii long day onion haddii aa keento Soomaaliya oo kale camal oo wadamada saacaduhu ay dheer yihiin qorraxdu ay jirto loogu talagalay haddii aa Soomaaliya oo kale keento ma gaarayso marka qorrax ku filan oo ay ku bilowdo jirdii hoose. laakiin short day onionka markii la keeno Soomaaliya oo kale oo lagu abuurayo markii ay gaarto kulaylkii iyo qorraxdii loogu talagalay saacadii qorraxda loogu talagalay ay gaaraan oo ay bilaabaan jiridda hoose markaas weeye marka ay biyaha ugu badan ay u baahan yihiin biyo badan ay u baahan yihiin markaas weeye. haddii markaan oo kale aad biyaha ku yarayso waxaa dhacaysa marka in geedkii uu is yiraahdo waa dhiman kartaa biyo fiican ma haysatid oo uu si dhaqso ah uu ku bislaado. taasna marka waxay keenaysaa hadhow markii aad ka dhig istiraadid in uu si dhaqso ay u halowdo oo ku qoranto. ama waxaa dhici karta in haddii biyuhu ay ku yaraadaan inay soo saartaan basal aad u yar oo xididkeedu uu yar yahay inay soo baxdo ayaa dhici karta iyadana. laakiin iyadana waxaa muhiim ah haddii aad xilligan biyaha zaa'id aad uga dhigto oo ka badiso ilaa wax kasta qiyaasaa la rabaa oo xilli dheer ay iska qoyan tahay basashii iyadana cudurradan oo funguska ayaa ku badanaya. marka dabcan lama rabo inaad ka badisid inaad ku yaraysidna lama rabo. waxaa la rabaa biyo ku filan inay helaan oo biyuhu dhex fadhin. sidaas darteed ayaa waxaa muhiim ah basashaan oo kale markii la abuurayo in lagu abuuro ciidaha aan aadka biyuhu u dhex fariisan. sidaas darteed ayay u fiican tahay maxaa yeelay biyihii meesha ma dhex fariisanayaan way soconayaan oo ma qoyanaanayaan maanta oo dhan biyo ma dhex fadhiyaan. laakiin haddii maanta oo dhan biyo dhex fadhiyaan dhibaato ayay noqonaysaa. marka ciidahaas sidaas darteed ayay ku habboon tahay oo furfuran oo biyuhu ka baxi karaan. ciidahaas way ciidaha maaragtay basasha iyo toonta iyo ku fiican oo lagu abuuraa. waxaa kaloo muhiim ah oo dabcan aan hore uga soo hadalnay in subaxa hore ay fiican tahay in la waraabiyo basashoo kale. tan marka waxay keenaysaa in geedkii uu biyihii lagu waraabiyey uu isagu ka faa'iidaysto oo qaato. haddii laakiin aad duhurkii iyo xilli aad qorraxda u kulushahay haddii aad waraabisid biyihii inta badnaa evaporation waxa la yidhaha ayaa ku dhacaya oo kulaylkii hawadii dabayshii iyo qorraxdii kululeed ayaa qaadaysa oo ka baxaysa. haddii marka aad subaxii aadan samayn karin
xoogaa galabkii ayaa fiican markaas in la sameeyo. laakiin haddii hameenkii aad ka dhigtid aad ayay u liidataa oo kuma fiicna, oo cudurro fungus ah ayaa ku dhici kara haddii aad hameenkii aad samaysid. cudurkan la yirahdo powdery mildew oo kale ayaa ku dhici kara, marka hameenkii ma fiicna in la sameeyo. marka goormee ayay tahay marka inaad ka joojiso waraabinta basasha? marka baaritaamo ayaa sidoo kale waxay muujinayaan in xilligan oo ugu dambeeya ee basashu la rabo inay soo bislaato ay haddii aad biyo badan ku shubto ay saameyn weyn ku yeelanayso oo wax soo saarkii ay hoos ay u dhigayso. marka 3 usbuuc ama 2 usbuuc oo ugu dambeysa basasha biyaha laguma shubo. haddii biyahaas lagu shubo wax soo saarkii ayay hoos u dhigaysaa, inay kor u qaado iska daaya. marka waxaa lagu yaqaanaa inaysan basashii aysan u baahnayn biyo, waxaa lagu yaqaanaa inay maaragtay calaamadaha inay bislaatay ayay kuu muujinaysaa. calaamadahaas markay inay bislaatay kuu muujinaya waxaa ka mid ah in caleentii ay hoos u dhacdo oo ay yelowna noqoto ama jaalle ay noqoto ayna dhinac u dhacdo ayaa ka mid ah. markaasoo kale marka waa calaamad ah inaad joojiso biyaha oo aadan waraabin. maxaa yeelay xilligaas oo geedku u bislaanayo waxaa dhacaysa marka in ay basashii ay qalalayso oo biyihii ay ka baxayaan. waana muhiim haddii la rabo in la kaydiyo hadhow inta aan lasoo bixin in maaragtay xilligaas 2 usbuuc 3 usbuuc ugu dambeysa biyaha lagaba joojiyaba. dabcan waxaa muhiim ah inay kusoo aado xilli uusan roob jirin in lagu soo aadiyo. beeraley UK iyadoo laga soo xiganaya marka oo baaritaamo lagu sameeyey arrintaas ayaa waxay soo sheegeen in xilligaas basashu ay soo baxayso, in xilligaas ugu dambeeya ee basashu ay bislaanayso haddii la waraabiyo ama roob u yimaado in ay dhacayso basashii marka inay si dhaqso ah ay u bislaato, kabacdina ay saameyn ku yeelato kaydintii basashii la kaydi lahaa sidaan hore usoo taabanaba. marka waxaa kaloo dhici karta in maaragtay basashii ay dildilaacdo oo dildilaac uu ku dhaco, maxaa yeelay biyihii ayay si dhaqsa ay ku qaadanaysaa xilligaas oo bislaadka ay tahay oo lagu shubayo. waxaa kaloo dhacaysa in basashii ay markaas haddii aad waraabiso inay koritaan cusub inay bilaabayso haddii xilligaas aad waraabiso. taasna waxay kugu qaadanaysaa marka qallajis badan oo maaragtay wadamadan oo kale waxaa laga yaabaa in mararka qaar lagu qallajiyo maaragtay aan banaanka lagu qallajin haddii ay roob ka baqayaan. marka khasaaro badan iyo qarash badan ayaa gelaya. marka 2 usbuuc ugu dambeysa waa nidaam la raaco in aan wax biyo ah aan lagu shubin oo laga ilaaliyo. haddii marka aan hadda ka hadalno biyaha la isticmaalo ama nooca loo waraabiyo, ilaa noocyo badan oo beeraha loo waraabiyo ayaa jira. marka basashoo kale ma ahan geedaha aadka u faraha badan oo biyaha aadka u fara badan raba si gooni ah. marka wax soo saar fiican si looga helo basashoo kale waxay u baahan tahay 350 ilaa 550 milimitir ayay u baahan tahay oo waraab ah inta geedkaas uu korayo ama roob ah isku darsan ayay u baahan tahay. marka si haddii loo eego geedo badan kama biyo badna basasho. laakiin sida aan sheegnay maadaama ay leeyihiin xidid oo shallow ah oo aad u koreeya oon hoos aadin, maadaama ay leeyihiin basashoo kale waxaa la iskula taliyaa in aad biyaha ku shubtid si joogto ah inaad ugu shubtid biyaha, laakiin biyo fara badan aadan ku shubin. maxaa yeelay biyo fara badan haddaad ku shubto hoosay iska aadayaan, xididkoodiina way dhaafeen. marka biyo yar oo joogto ah ayaa lagu shubaa basasha oo aan sida aan sheegnay aan ciiddii dhex fadhiisanin oo maantuna aysan biyo ku dhex jirin oo aan taas aan la rabin. marka baaritaamada qaar ayaa waxay muujinayaan marka in iyadoo marka hore biyo fiican lagu shubay oo beertii si fiican biyo fiican loo siiyey kabacdina inay fiican tahay in la isticmaalo nidaamkan la yirahdo drip irrigation. weliba wadamada oo maaragtay sida oo maaragtay Soomaaliya oo kale ah oo ay cimiladooda aad u kulushahay biyuhuna roobkuna uu ku yar yahay, in drip irrigation uu yahay nidaamka ugu fiican ee ku fiican dalagan. maxaa yeelay taas waxay siinaysaa in markasta biyo lagu shubi karo qiyaasan oo yar. taas marka waxay keenaysaa in fertilizerkii si fiican looga faa'iideysto, sidoo kale in nafaqadii hoos ka aadaysa ay yaraato, wax soo saarkiina uu kor u kaco ayay keenaysaa markii nidaamkaas la isticmaalo oo drip irrigationka. laakiin sida aad ka aragtid basasha inta la isku jirsiinayo oo la isugu dhaweynayo oo 200 oo kun oo basal ah halkii hektar la gelinayo, waa aad ayay u adag tahay in nidaamkaas oo kale
Soomaaliya laga hirgeliyo. maxaa yeelay waxay u baahan tahay nidaam badan, habays badan, qarash badan, in la helo taybkii. waxaasoo dhan Soomaaliya aad ayay u adag yihiin. marka nidaamkaas Soomaaliya kuma fiicna, oo beero waaweyn oo basal ah in drip irrigation inta la dhigo lagu habeeyo uma sahlana beeraleyda Soomaaliyeed, oo qarash kaa gelaya iyo faa'iido kasoo baxaysa isma lahan. marka wadamo badan oo laakiin oo reer galbeedka oo kale ah drip irrigationka ayaa la isticmaalaa, oo waxaa la sameeyaa 6 saf oo kale markii halkii beer oo kale la dhigo 2 tubo kaliya ayay dhigaan, ama 5tii saf 2 tubo bis ayay dhigaan. biyihii marka waa gaarayaan, oo haddii weliba ciidaas ay tahay ciid aan isku ciriri ahayn way gaarayaan. laakiin taas waxay u baahan tahay mishiinadii iyo qalabkii lagu dhigi lahaa. maxaa yeelay waxyaabo badan ayaa ku imaan kara, oo haddii maaragtay taybkaas aad dhigtid sida hadda u jeedid sawirkan oo kale uma taagna, oo marka la dhigayo way jilicsan tahay, dabaysha ayaa tuuraysa, geedihi ayay dhaawacaysaa. marka qarash badan ayaa kaa gelaya, in la nadiifiyo ayay rabtaa. marka nidaamkan oo kale Soomaaliya kama soconayo, laakiin waa noocyada ugu fiican ee basasha lagu soo saaro. laakiin kan oo kale beeraleyda Soomaaliyeed wax u sahlan ma ahan. marka gabagabadii sida aan sheegnay, basashu waa geed aad u xidid gaaban, nidaamyada badan oo kala duwanna waa isticmaali kartaa, sida inaad maaragtay faro irrigation isticmaasho waa isticmaali kartaa. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa overhead irrigation waa isticmaali kartaa. mid kasta oo nidaamyadaas ka mid ah wuxuu leeyahay faa'iido iyo faa'iido darro ayuu leeyahay. laakiin adiga wixii aa haysato ayaa la isticmaalaa. marka Soomaaliya oo kale haddii aad joogtid, labada nidaam oo ugu fiican oo lagu waraabi karo basal waaweyn oo wax badan laga soo saari karo waa faro irrigation iyo overhead irrigation. labadaba waa la isticmaalaa adduunyada, maadaama drip irrigationkii qarashkiisii aan ka kici karin, oo tubooyinkii iyo wixii oo dhan in waddanka laga hela aysan sahlanayn. marka video intaasaan kusoo gabagabaynayaa. marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen. intaan marka video kala kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullah iyo beerasho wacan.